بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد. madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda kale ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka iyo dhammaan bulshada halka isugu timi iyo inta ka daawanaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan hambalyeynayaa runtii Axmed Saciid Cige oo qoray buug caqiibo leh maan akhriyin buugga laakiinse intii laga sheegayna waa ay u filan tahay marka lagu daro Axmed Saciid Cige inta naqaanay iyo inta jeer aan la kulmay ama waraysi iga qaaday iyo khibradda uu lahaa xirfadiisa uu ku soo shaqeeyay oo runtii wariyaashii ama suxufiyiinta qiimaha badnaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa runtii inuu mihnadii uu ka shaqeynayay wax ka qoray si uu daayirta uga tago waxay dhugan karaan oo ay waxaweyaan ka heli karaan aqoon ka heli karaan iyadoo mar walba qoraalku yahay dhaxal umadeed oo ummadda u hadha oo ay habboon tahay inuu isku dayo qof kasta oo awoodi karaya. waxaan mar labaad ku baraarujinayaa inta iga aqoonta badan iga da'da weyn iga khibradda badan ee joogta halkan ama la socota inay wax qoraan oo isku dayaan. qofna kuma dhalan waxa laga yaabaa markuu qoro ama uu baaro ama isku dayo inuu hibadiisa soo saaro oo ay noqoto hibo waxa uu ku foogan yahay baa uu kaga fiican yahay qoraalku inay noqoto baa laga yaabaa. bini aadamkuna ilaahay wuxuu ku kaydiyey bini aadamka khaslada aad u badan oo ilaa la soo saaro oo la isku dayo oo la carbiyo aan la ogaanin inuu leeyahay. marka waxaan leeyahay runtii Axmed Saciid Cige waa ku mahadsan yahay inuu noqdo hormuud suxufiyiinta iyo inta badan ee waxa weeye khibradda ku duugan tahay reer Somaliland iyo geyiga Soomaalidaba inuu noqdo inuu soo bandhigo xogo xasaasi oo kala duwanaa oo uu waxa weeye baro ama waxa weeyaan isku dayo inuu qoraalka ku soo tabiyo si ay dadkuna ugu daydaan. way jiraan dad badan oo wax qoray laakiinse weli waxa weeye gaabis baynu ku nahay qoraalka. waxaad garan karaysaan halkaynu qoraalka ka joogno markii af Soomaaliga la bedelay af Soomaaliga la qoray baan leeyahay ama tacliinteeni af Soomaaliga lagu qoray inkastaan anigu yaraa oo aan dugsiyada dhiganayay haddana waxaa marka qofka ardayga isiraado wax soo akhri waxa kaliya waxay ahayd maadooyinkii dugsiga lagu dhigayay ayuunba af Soomaali ku qoraa. library-yada ama meelaha wax lagu akhristo waxa yaalay buugta Ingiriisiga iyo Talyaaniga iyo Carabiga ku qoran. marka halkay saynu faqir uga nahay luqadeena waa arki karaysaan yaafkeena runtii markastoo wax la qoraana waxay baaqi yeelaysaa ama reebaysaa inay ummaddu luqadeedii noolaato dhaxal la isugu gudbiso dhacdooyinkii nolosha iyo cilmiga la ururiyo wixii waxay ku yimi ilaahay waxay ku soo dejiyay mooyaane waxyaalaha kale waa tajaariib la tijaabiyey ama isku dayo ama dhacdooyin ummaddu isu soo tabisay jiilaajiil taasaa noqoto hadhowto cilmiga la kala dhaxlo. inkastoo buugu leeyahay wuxuunbaa 1% ha noqotay laga faa'iidayaa. marka waxaan dhiirigelinayaa runtii wax la qoro waxaan ku ammaanayaa ku hambalyeynaya Axmed Saciid Cige waa mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.